si sharaf leh u soo gabagaboobay koobkii kubadda cagta ee uu maalgelinayay telefishinka caalamiga ee Home Cable TV xarunta uu ku leeyahay dalkani Jarmalka. koobkaas ay isugu yimaadeen labada naadi ee lagu kala magacaabo Home Cable TV iyo waliba Wadani Stars. waxaana uu ku soo gabagaboobay 2 iyo 3 ay guushu ku raacday naadiga ku ciyaarayay magaca telefishinka caalamiga ee Home Cable TV ee Home Cable TV Tigerism. guushan uu telefishinka caalamiga ee Home Cable TV naadiga u ciyaaraya uu ka gaaray ciyaarihii soo socday ilaa 16 bishii December ee sanadkiina dhaafay ayaa noqonaya guul la taaban karo taasi oo ay bulshada Soomaalidu ka faa'iideyso isdhexgalka iyo waliba isbarasho. waxaana telefishinka caalamiga ee Home Cable TV kooxda magaciisa ku ciyaaraya iyo kooxda kale ee lagu magacaabo Wadani Stars runtii ay soo bandhigeen ciyaar uu qiimaheedu aad u sareeyay taasi oo dadkii daawanayeen ay aad ula dhaceen. talaabooyinka noocan ayaa noqonaya qaal waxtar u leh bulshada Soomaalida hadiiba halkaasi laga sii wado. waxaana jaaliyada Soomaalida ee bartamaha gobolka Hiisan ay mahadnaq ballaaran iyaguna u soo jeediyeen telefishinka caalamiga ee Home Cable TV guulaha noocan ah ee uu ku talaabsaday iyagoo u rajeeyay kuwa kalena in talaabooyinkan ay ku daydaan. waa markii ugu horeysay ee telefishin afka Soomaaliga ku hadla uu qaado talaabo noocan ah taasi oo bulshada Soomaalida ugu faa'iideynayo. waxaan aad ugu faraxsanahay boqolkiiba maanta inuu noo soo gabagabay koobkii muddada intaas leeg soo socday. waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa TV caalamiga ee Home Cable TV oo lahaa kharash garaynta koobkan iyo maaliyadiisa. waxaan kaloo aad ugu mahad celinayaa jaaliyada Soomaalida oo laftirkooda gacan weyn naga siiyay isku keenka dhalinyarada. bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil muslimiin alxamdulillaah laa ilaaha illa allah allahu akbar. anoo ku hadlaya magaca jaaliyada Mittel Hessen Giisan fadhigeedu uu yahay waxaan aad iyo aad ugu horeyn ugu mahad celinaynaa telefishinka Home Cable. halkan maanta waxaan iskugu nimid inaan daawano ciyaar kuleed laba koox dhex martay oo ka soo haray labadaas koox 6 naadi iskugu yimid maalmihii la soo dhaafay ugu dambeyn laakiin labadan kooxood ayaa maanta guusha waxay ku raacday naadigii u dagaalamahayay ama ka socday Home Cable. aad baan ugu hambalyeynaa ciyaartaas oo runtii ahayd ciyaar xiiso badan lahayd. waxaan aad ugu faraxsanahay koobkan muddo badan soo socday oo ciyaarina koox afar baa ka soo qayb galeen laakiin maanta koobkan waxa kala qaadan finalka loo kala qaaday taas oo u suurta gashay in Home Cable TV iyo Wadani Stars ay isku ogaaga finalka. ciyaarta ku dhamaatay ciyaar joog aad fiican ciyaartu soo wada bandhigeen taas oo kala batay hal waxaana ku jiray ciidankii laga guuleystay gruubkii laga guuleystay laakiin waxaan walaalaha ay u rajeeyaan guusha naga guuleystay insha Allah kala koob fara badan la dhigi doon laakiin waxaan rajeynayaa insha Allah in guusha mar labaad aan gacanta ku dhigi doono. koobkani oo uu dhigay telefishinka caalamiga ee Home Cable TV xarunta uu ku leeyahay dalkani Jarmalka isla markaana ay ku tirtamayeen labada naadi ee lagu kala magacaabo Home Cable TV iyo waliba Wadani Stars ayaa maanta gabagabadiisii ahayd. waxaana koobkani ku guuleystay naadiga Home Cable TV magaciisa ku ciyaarayay iyadoo lagu kala badiyay 2 iyo 3. haddaba waxaanu koobkan si maamuus leh ugu wareejinaynaa gudoomiyaha sportska ee jaaliyada mudane Maxamed Amiin si uu ugu gudbiyo naadigii guuleystay. koobkani lagu magacaabo Home Cable Cup 2013 ayaa noqonay markii ugu horeysay ee talaabooyin noocan ah uu telefishinka caalamiga ee Home Cable TV uu qaado iyadoo mahadnaq ballaaran aan u soo jeedinayno maamulka sare ee telefishinka caalamiga ee Home Cable TV oo iyagu talaabadan runtii ka geystay dadaal muhiim ah. Mustafa Xaaji Aadan Haarun telefishinka caalamiga ee Home Cable TV Jarmalka.